waxaa dhowaan magaalada Burca ku taala Somaliland ka dhacay ciyaarihii gobolada ay ku tartamayeen gobolada Somaliland waxaana ciyaarahaasi ahaayeen kuwa aad u xiiso badan balse aanu soo qaadano qayb ka mid ah ciyaarihii halkaasi ka dhacay waa kan daawadayaal ku soo dhawaada tartankii kubadda cagta ee ciyaaraha gobolada Somaliland ayaa si rasmi ah maanta uga bilowday garoonka caalamiga ah ee Alamsey Stadium ee magaalada Burco. bilowgii tartan ciyaareedka gobolada Somaliland waxaa garoonka weyn ee Alamsey Stadium ee magaalada Burco lagu qabtay munaasabada lagu furayay ciyaaraha gobolada Somaliland oo ay ka soo qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Cabdi Siciid Faahiye, gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro, afhayeenka madaxtooyada Somaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse, agaasimaha xafiiska siyaasadda madaxtooyada Bashiir Cabdi Xariir iyo saraakiil kale oo ka socotay xukuumadda Somaliland. sidoo kale waxaa munaasabada goobjoog ahaa saraakiisha u sarsaraysa telefishinada caalamiga ah ee Universal, Home Cable TV, telefishinka qaranka iyo weliba qaar kale oo ka mid ah warbaahinta caalamiga ah. munaasabadan oo ahayd munaasabad si weyn loo soo agaasimay waxaa ugu horreynba hadallo dhiirigelin, dardaaran iyo wacyigelin bay isugu jira ka jeediyey maamulka gobolka Togdheer, maamulka degmada Burco, afhayeenka madaxtooyada Somaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse iyo weliba saraakiisha iyo weliba xildhibaano ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland oo ay ka mid ahaayeen xildhibaan Maxamed Yuusuf Waabeeyo, xildhibaan Cali Mareexaan iyo xildhibaano kale. sidoo kale waxaa munaasabadani hadallo iyaguna ka jeediyey golaha wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Cabdi Siciid Faahiye, wasiirka wasaaradda madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan, waxayna dhammaantoodba sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin bilowga ciyaarahani ka bilaabmaya garoonka caalamiga ee Alamsey Stadium ee magaalada Burco. waxay gobolka Togdheer uga mahadnaqeen martigelinta koobka gobolada Somaliland iyagoo ugu baaqay inay soo dhoweeyaan xubnaha iyo ciyaartooyga ka kala socda 7 gobol ee kale. sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici. waxa uu sheegay in Burca ay ahayd meelihii caanka ku ahaa ciyaaraha Somaliland, sidoo kale ay magaalada Burca tahay magaalo taariikhi ah. waxa uu ammaan u jeediyey ciyaartooyda u ciyaaraysa 8 gobol ee Somaliland isagoo ku dhiirigeliyey in mid walba uu isku dayo inuu guusha hanto. khudbad dheer oo madaxweyne ku-xigeenku halkaasi ka jeediyey ayaa waxaa ka mid ahaa dowladdu waxa maanta itaalkeenu iyo waqtiin waxaan ku soo noolayn muddada 20 sanadooda isku tashi iyo iskaashi aan markasta iskaashano oo aynu kaga baxno wax kasta oo maanta horumarka maanta gaarno waxaan ku gaarnay iskaashi. nabadgelyada maanta Soomaaliya ka qaado waxaan ku gaarnay iskaashi. in alle cidii ka qayb qaatay ka bixisa qaaran aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaa kaloo mahadnaqayaa guddiga qabanqaabada heer qaran laga magacaabay wasiirku gudoomiyay oo si wanaagsan runtii u shaqaysay hawlana ku dhacdayna aad iyo aad baan u hambalyeynaa hawsha fiican. waxa uu madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland si toosa bilowga ciyaaraha gobolada Somaliland isagoo dhammaanba ciyaartooydii halkaasi ku ciyaaraysay ee ka kala socday 2 gobol ee Maroodijeex iyo Togdheer ugu laaday kubaddii ugu horeysay halkaas oo uu ku bilaabantay ciyaartaasi. waxa uu madaxweyne ku-xigeenku muddo saacad ku dhow daawaday ciyaartii iyo qaabkii ay u socotay, waxaana bilowgii ciyaartaniba daqiiqadihii ugu horeeyay ciyaartani gool xaraysay gobolka Hargeysa iyadoo ay haafkii hore ciyaartani ku dhammaatay 1-0. waxaana haafkii dambe ciyaartani ay gobolka Togdheer iska soo bogeen goolkii
ay ka dhaliyeen goolka maroodijeex waxaana ay ciyaartu ugu dambayntii ku soo gabagabowday 1-1 dambayntii cayaaraha gobolada Somaliland ayaa si layfa looga daawanayay telefishinada Universal Home Cable TV-ga qaranka iyadoo shabakada caalamiga ah Wanaag News ay si layfa ugu baahinaysay dadka ku xidhan internetka waxaana gebi ahaanba cayaarahani telefishinada baahinayay u fudaydisay shirkadda isgaadhsiinta Somtel iyagoo halkaasi intii munaasabadda iyo cayaaraha lagu guda jirayba uga mahad celinayay telefishinadani shirkadda Somtel doorka wax ku qolka ah ee ka qaadatay dhiirigelinta iyo baahinta cayaaraha gobolada Somaliland ay u baahinayso sida live-ka ah waana markii ugu horeysay ee gobolka Togdheer uu martigeliyo cayaaraha gobolada Somaliland isla markaana uu cayaartii ugu horeysay kula ciyaaro gobolka Maroodijeex garoonkiisa ama garoonka ay ku martigeliyeen gobolada kale waxaana la fili doonaa cayaaraha soo socda iyo gobolada isku arka iyo natiijooyinka ka soo kala baxa